gudoomiyaha xisbiga mucaaridka iyo wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa kulan la yeeshay xildhibaan Gavin Williamson oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska una ololeeya aqoonsiga Somaliland. Gudoomiyaha xirsi oo ka warbixiyay kulankaasi ay la yeesheen xildhibaankaasi ka tirsan baarlamaanka Ingiriiska ayaa waxa uu yiri waxa aan xafiiskiisa kula kulanay Sir Gavin Williamson waxaanu ku bogaadinay dadaalka uu ugu jiro aqoonsiga Somaliland. markasta xisbiga wadani waxa uu taageero dhiirigelin iyo talaba la barbar taagan yahay cid kasta oo aqoonsiga Somaliland ku hawlan. Xukuumadana waxa aan u sheegaya oo ku baraarujinaya in markasta oo siyaasadda guduhu saxan tahay ay saaxiibada Somaliland safiiradeena dibadda iyo qof kasta oo diblomaasi ah ama muwaadin ahi uu dadaalkoodu macno samaynayo. haddii se aynu qas iyo qabiil ku fooganahay oo ciidda kala miisayno waxa aynu noqonaynaa sidii nin dudumo u maydhaya, ayuu ku yiri qoraalkiisaasi gudoomiyaha xirsi cali xaaji xasan. waxaanu intaasi ku sii daray waxa aan rajaynayaa isbedel khayr leh iyo in dadka Somaliland ay gaari doonaan himiladooda qarannimo, gobonimadii ay muddada dheer raadinayeen iyo dawladnimo bulshada u adeegto oo ay mahadiyaan, ayuu ku soo gabagabeeyay qoraalkaasi gudoomiyaha xirsi cali xaaji xasan.